السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سو دواada dhamaantiin meel baa joogtiin hadayna nagu cusubtahay ay tahay markii kugu horeysaan soo boqoto soo dhawo xal hadaad noo joogteen oo ku maasantahay saaxiibada halkan igala socdo waxa la Ramadan Kareem dhamaantiin meel baa joogtiin waxa maalmo Ramadan biskeed waxa la bartaan YouTube ka wax badan ma soo dhigin hase ahaatee sida hore in kugu sheegay waxaan barteen Telegram-ka mar walba waxa information iyo trade setup iyo waxaas ma laga waayi doono waa soo dhigi doonaa sidii aan sheegayna ayaana dhacday oo barteena waa soo gelinay waxa la yiraahdo trade setup intiina ka faa'iideysatay intiina la socotay oo ku mahadsantiin dhamaantiin intiina kalena waxa idin sheegay dad bartaan ay weydid waxa falanqaynta suuqa kala arki weydin in la soo dhigi waayo waxa ayadoo trade setup ayaa waxaan soo dhigi doonaa waxa la yiraahdo sheeg barteena Telegram Somali online opportunities sidoo kale video hostis ayaa linkiga ku soo dhigi doonaa halkaas ka raaci kartaa oo ku maasantiin markale saaxiibayaal soo dhawaada harma maanta in halkan ku duubno waxa la yiraahdo falanqaynta suuqa forecasting ka waxa ugu talagalnay dadka casharaan daawaday wuxuu bilaabay yihiin inay trade-kooda ku dabaqaan sidii wax u arkaan iyo sida trade-deeda u dhisay nidaamkeena u dhisan yahay inay isku waafaqdo marka la soo dhawaada ayaan leeyahay sidoo kale waan ka raali gelina codkayga dad si fiican u fahmi weyda maadaama xabiibi hargab wax yar iska jiraan waxaan rabaa halkan inaan kaga dabageeyo falanqaynta suuqa lacagtan waa DXY hadda waxaan dhan iska tirtiro si aan hortiina mar kale ugu sameyno waxa la yiraahdaa trade-ka marka dhisayso waxaan ku yiri mar walba waxa ugu muhiimsan oo la rabo inaad raadisid aad soo fahamtid waxa waa jihada guud ee suuqa jihada hadii aan ku sheego trade-ku meeshu lacagta u jeedaan ku sheego falanqaynta jihada aan ku siiyo yani rules-ka kale waxa la yiraahdaa liquidity iyo mitigation iyo supply iyo waxa la yiraahdaa counter trend iyo trade-ku inuu diyaar yahay inuu diyaar ahayn waxaas kale waa rule aad u fudud laakiin waxa meesha ugu muhiimsan mar walba waxa la yiraahdo sheeg maxaa la jihada guud ee suuqa jihada hadii aad maxaa la yiraahdaa aad iskhilaaftaan waa marka ugu badan aad iskhasaarada iyo dhibaatada aad la kulmi doontid sida hore kugu sheegay ruleska meel walba waa ka heli kartaa oo jihada doonka waa ka heli kartaa abka waa ka heli kartaa jihaha cayimna waa ka heli kartaa qayb kamid ruleska laakiin markii aad jihada aad khilaaftid ruleskaadii wax ka jira ma shaqeynayaan adigina waa ku wareeraysaa ku dhibaatoonaysaa marka qaarni maxaa la yiraahdaa istiraatiijiga inaad istiraaniyo waxa macquul ma baa kugu soo dhacayso ma fahamtid marka si ay kugu shaqeyso oo wixii aad ugu raaxaysato u fahamtid waa in horta jihada aad fahamtid jihada marka fahamtid wixii kale dhan waa ku fududaanayaan hadda lacagtan sida ujeedo waa DXY waxaan ka tusaale qaadanaa markay sell tahayna lacagay u horeyso dhan waa sell gareynaa kuwa dambeysana waa buy gareynaa markii ay buy tahayna sidoo kale bilcagsigeeda hadda marka waxa ujeedaa lacagta intaada doon tareenkaada helin waxa muhiim ah inaad soo heshid trendigi socdo in la dhameeyay kale korkeeda ugu horeysay suuqa uu tagay halkaan ay ahayd korkii ugu horeysay suuqa halkaan ayuu ahaa power high aan buu ahaa sorry korkii ugu horeysay suuqa halkaan ayuu ahaa oo powerkii ugu horeeyay kaas ayuu ahaa hoostii ugu hooseysayna halkaan ayay ahayd oo waxa ujeedaa hoostii ugu hooseysayna halkaan ayay ahayd korkii kasii horeeyay asagana sidoo kale halkaan ayuu ahaa hoostii kasii hooseysay iyadana waa kana hoostii kasii hooseysay iyadana waa kana already haddii aad heshid laba high iyo laba low waxay ku siinaysaa jihada inay ku cayiman tahay aad garanaysa meelaad suuqa u raaci kartid already sidaad ujeedin waxaad ujeedin already kan laga soo hoos maray oo suuqeena uu dhamaaday
oo ahaa kan dhameeyna uu yahay lower lowan trend official lower low lower high kana uu yahay keenagii kale kana uu yahay lower lowgii ugu dambeeyay already markaad aad sidaan u heshid jihada u cayimtid dee wixii markaan meelaha aad supply ka raadinaysid kanay noqon kartaa oo supply ku noqon kara sidoo kale waxaa kaloo ku noqon kara halkan ayaa ku noqon karta another supply kale ku noqon karta waxaa kaambil marka kan la tagayo kan kale muhiimadu waxaa waa inaad meelahan liquidity ka heshaa liquidity-ga aad markaa ka heshid oo topka inuu suuqu istaagay in kale kadib ayaad go-aanka u dambeeya oo maxaa la yiraahdaa oo ku qaadashada aad gaari kartaa inuu halkan istaagana waa laga yaabaa inuu istaagana halkan istaagana waa laga yaabaa waxaa ku garanaysana waa kuu sheeg waa in hoostii u dambeysay la jabiyaa marka hoostaas lasoo jabiyo ayaad tradeekaada ayrin kartaa markasoo already dx waxaad ka aragtaa fursad down traina soo lacagaha ay u horeyso oo dhanna lacagsigeedaas ayaad ugu garaaci karaysaa haddii ayna kusii socono urius iyo soo noqonaynaa wax yar baa ku jira cilmi kale oo gaara gadaal baa u marsanaynaa USD cad iyada saaka meelahan aan ka sugayay laakiin waxaa ujeedaa in move waalan oo meeshaan lagu soo jebiyey sheekadan oo dhanba haddaan ka dhacno 4 hourka waxaa ujeedaa waxa la yiraahdo isheeg USD cad inay jaadeedaan ayadana ay tahay waxa la yiraahdo uptrend 4 hourka uu yahay uptrend hoostii ugu hooseysa inuu yahay kan oo ah higher lowgiisi korkii ku xigayna kan uu ahaa hoostii kasii hooseysana kan ay ahayd already intaas markaa haysatid meelahan waxay ahayd meel dhimaan ah oo la imaan karay hase ahaatee inaan la imaanin baanu jeednaa oo soo koor oo ka laabtay halkan haddaad fiirisay liquidity baa ku yaala oo kan liquidity oo botoma mitigationkii ma dhacay of course wuu dhaco waa kan halkaan uu yimid okay halkaan ayuuna ka noqday halkaan markuu noqday waxaa ujeedaa oppositionkaada waa la jebiyey oo meeshii mitigationkiina waaye oo ugu dambeysay already the trade-ka marka waxay noqonaysaa meeshaa ka sugaysa inuu yahay halkaan uu noqonayo waxaa la yiraahdaa ishaag dhimaankaadi sababtoo kan markaan waa laga tegay kan ayaa ugu dambeeyay dhimaanka meeshaana wax walba aad ka heshaa aad ka haysatid marka trade-ka waxaa sugaysaa in meeshaan lagu imaado kala barka kandalkaada si stop losskaaduna u yaraado soo USD cad waxaa fursad bay ah ayaa ka macquula saacadahan soo socda hadeertaanba New York inta la gaarayo New York session intuu furmaayo waxaa la yiraahdaa 60 iyo dhowr baa ka dhiman meeshaan markuu yimaado ayaad raadin kartaa waa trade mustaqbal leh oo aad u weyn korkaan inuu tago weeye laakiin waxaad xisaabsanaysaa meelaha kugu dhow gidaarada hadhow meeshaan oo kale ku noqonaysaa TP1 oo ATP TP2 oo kale 130kan TP3gana meeshaan oo kale noqonaysaa 193 targetkana in madaxa lagala baxo meeshaan laga sara maro 250 pip waa trade inaba caadi ahayn waa ka faa'iideysan kartiin dhammaantiin sidoo kale USD waxa la yiraahdaa JPY iyadana saa ujeediin korkaan ay ku socotay korka ugu hooseeya waa kan oo ahaa iyo kan kale labadoodiiba waa lasoo jebiyey oo ujeeda waa kan trendi kale ayaa bilowday oo 1 hour wey waxaan ayada
higher high, higher low, higher high. So ayadana waxaa sugaysaa saan kuu sheegay labadan meel waxaa ku garan doonta haddii halkan laga soo daato oo hoostan la jibiyo ku noqoska meeshaana sugaysaa haddii aan la istaaginin oo korkaan lagu sii socdana it means waxay ka micno noqonaysaa meeshaan inay noqon doonto liquidity isku bedeli doonto trade-kana meeshaan markii la tagaa inuu dhammaado in kale la xaqiijin doonto ayadana trade-ka ku jira waa saas waaye ilaa caawa ilaa berigelinka hore inaan ka heli karnaa rajeynin waxaa la yiraahdo lacagta ingiriiska JPY iyadana saa kuu sheegay waxaa ujeedaa ku jirta top ah korkaan inaad ka heshay waxaa la yiraahdo supply hadist waxaa sugaysaa iyadana haddii meeshaan iska dhamaystirto oo counter trade heshido oo halkaan lasoo jibiyo lagu noqdo waa halkaan trade-ka haddii kalena waxaa sugaysaa kan weyn oo ah halkaan kore haddaan halkaas uga baxno GBP/CHF GBP/CHF عفوا trade kalaan meel kale ka fiirnaya iyadana GBP/CHF waxaa ujeediin GBP/CHF waxaa ujeediin 15 minutes higher high, higher low, higher high. waxaa ka sugaysaa iyadana ku dhintay wax walba waa samaysatay hoostan in loo imaado ayaan ka sugaynaa so waa in trendiga halkan ku jira oo yarka hoosta u socdo isagaa laga dulmaro lagu soo noqdo all the way up la aadaa ayadana saas ayaan ka sugaynaa sidoo kale lacagaha kale oo euro JPY euro JPY iyada 1 hour weeye trendiga 1 hour waay waxaa sameynaysaa hoostaan ugu dambeysay ahayd waxa la yimaado korka horta ugu koreeya waa kan oo 1 hour-ka waa kan higher high hoostiina waa tan hoosta ay ugu hooseyso waa tan korkii ugu koreeya kiisii labaadna waa kan waxaad sidoo kale ujeedaa in laga soo hoos maray hoostii 1 hour ka ahayd 1 hour low ka soo hoos maray 1 hour low raagiisana uu kan yahay hoostaan ayaa kii ugu hoosey ayadana si lamida waxaa la yiraahdo lacagta hadda aan fiirinaynay lacagta ka horeysay iyadana waxaa ujeednaa in halkan ay tahay meel supply zone so iyadana halkaan aan fiirinayna wax liquidity inaan ka helno ay halkaan inoo tagto kadibna ay all the way hoos aado iyadana sidaas ayaan ka rajeynaynaa waxa la yiraahdo euro JPY euro AED iyadana waa clear uptrend waxaa la yiraahdo 1 hour iyo 15 iyo 30 kaba korka hoostaana ugu heshiisay korkaana ugu koreeyay korkaan waa kan iyadana waxaan ka sugaynaa in meelahana loo imaado oo supplygan aan ka qaadano meelahan aan liquidity iyo manipulationka iyo wax walbana aan ka helno aldaway iyadana sidaas ayaan ka rajeynaynaa euro AED iyadana marka sidaan ayaa ka rajeynaynaa sidoo kale NCD JPY
tradekan waxa waa last week halkan ayuu entry ka bixiyay 9 pip stop loss ayuu ahaa laakiin 200 oo pips oo profit ayuu ahaa waxaa la yiri mar hore ayuu last week ayuu ahaa tradekan haddana sidii ayaan mar kale ka filanaynaa halkan ayaan rajeynaynaa inuu markaana inuu istaago liquidity iyo halkan waxaan ka wada dhameystirno kadibna oo entry halkan aan ka helno ayaan rajeynaynaa insha Allah sidaas ayaan isagana ka filaynaa waxa la yiraahdo AUDNCD waa trade 4 hour ku dhisan 15 minutes in la jabiyo ujeeda waa lagu soo noqday entry last week uu bixiyay maxaa la yiraahdaa 100 pip ayuu bixiyay waa halkan markuu jabiyo halkan uu yimid video clear ayuu 120 pip ayuu bixiyay haddana again ayaan rajeynaynaa inuu mar kale ku soo noqdo ani tradekan uu idhaafay kadib weli kama rajabeyn waxaan arkay inuu marka halkan ka kacayo soo noqdo halkan yimid haddana si fiican uu ka cilaayay inuu yimaado ayaan rajeynayaa mar labaad mar saddexaad kadib aan halkaas ka galo AUDCHF iyadana 15 minute down trend baa socda oo 15 kana la soo badoway kan kale ayaa trend ahaan u bilowday iyadana isla mid halkan liquidity baan ku haysanaa inuu halkan inoo tago supply-gan ayaan rajeynaynaa hadduu aleeymo sidoo kale waxa halkan lacagta ugu dambeysay tahay CAD JPY iyadana liquidity baan ka helnay supply baan helay weli laguma noqonin imbalance ayaa ku jira waa qasab in lagu noqdo meeshaan oo la tago candle-kan afkiisa insha Allah iyadana sidaas ayaan rajeynaynaa in loogu tago ilaa caawo tradeedan ilaa biri iyo caawo inay soo diyaariyaan baa laga yaabaa qaarkood ilaa biri gelinka dambe inay gaaraan soo marka isha ku wada haay ilaa maanta waa Isniin Talaado inay isku diyaariyaan baa laga yaabaa Arbacada iyo Khamiisna entry TP inaad ka heshid baa laga yaabaa waxaa ku rajeynaa inaad caafimaad qabtid oo wax un ku tari doonto intaan oo tusaalayaashan yararka insha Allah waxaan ka codsanaynaa in halkan subscribe dhahdo oo nagala socoto barteena Telegram waa ku mahadsantiin dhamaantiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.